cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed tan iyo markii uu ka baxay baydhabo wuxuuna siino iyo harsi u diiday aadan madoobe oo 80 jir deegaankiisa iyo dadkiisa loo adeegsaday oo aan damiir lahayn isla markaana wax kasta ka doorbida lacag waa ninkii hadli waayay isagoo calanka koonfur galbeed la tuuray oo madaxtooyada koonfur galbeed laga saaray sida la wada socotaan xalay cabdicasiis lafta gareen wuxuu ku guuleystay inuu awood kula wareego bogga rasmiga ah ee madaxtooyada koonfur galbeed isaga oo sidoo kale ka saaray dhammaan qoraaladii muuqaaladii iyo wax kasta oo aadan madoobe ku saabsan oo boggaasi la soo geliyey tan iyo markii isaga baydhabo uu ka baxay lafta gareen hadda isagaa gacanta ku haya xalayna fariin hambalyo ah ayuu bogga madaxtooyada koonfur galbeed ku soo qoray cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed taytalkaasuuna isugu yeeray waxaa kaloo saakay la soo geliyey fariinta afhayeenka dowladda koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed taas oo ka hadlayay xaaladda guud ee ka jira deegaanada koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ciidamo kumanaan ah oo isaga ka amar qaata ayaa baydhabo ku sugan duleedkeeda sida la wada socotaanna tan iyo markii baydhabo laga saaray lafta gareen ciidamadiisa waxay ka geysanayeen gudaha